السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا يوتيوب channel كيني قصولتي وعشر كيني صدحات عدد هرن نقصو بيرن لايك سبسكرايب يشير انت بتابو كسر عشر كي صدحات عشر كصدحات وحين كهلنا wax loo yaqaano basic accounting principle iyo waliba wax loo yaqaano Gandising gap ama xeerarka accounting wax walba ama wax kasta oo lagu dhaqmayo xeerar bay leeyihiin. Accounting wuxuu leeyahay wax loo yaqaano gaabis general accepted accounting principle baa la soo gaabiyay gaabka ujeedadiisu waxa weeye wax xeerarka uu ku shaqeeyo accounting-ku xeerarkaas way isbedbedelaan sidoo samanka iyo waqtigu isu bedbedelo ay isu bedelayaan waxay la soconayaan la jaan qaadayaan hadba ganacsiga noocu yahay laakiinse toban baa jira xeerarka kamida oo basic oo aan isbedbedelin oo laga maarmaan ay tahay mar walba in la helo tobankaasan markaa idin bidaaminayo oo idin yar maaragtay ama wax idinka sheegaya wax walbana waxa weey introduced qofka marka tilmaamto aan isagu wax baadha kusoo dhawaada cashirkeena waxaanu ka bilaabaynaa wax loo yaqaano economic entity assimilation oo ah kharashka la galayo xeerkaas wuxuu leeyahay haddaan fasiro economic entity assimilation baa loo yaqaanayo kharashaadka la galayo xisaabta waxa la xisaabinayo ku leeyahay waxa la xisaabinayo waa kharashaadkii shirkadu gashay hadalkayga u fiirso waxa la xisaabinayaa waa kharashaadkii xisaabta shirkadu gashay sidee yaani u gashay يعني تصالح وحكولي أونر كي مخصيصه تصالح نينك أونر كا قارجا وجار كوي بسدي أما قفك أونر كا الشركة ده قارجا وجار كوي بسدي خرج كجلايا كوب حي حبكم كما خصيان الشركة ده سوونا وحيو الشركة ده كقاطه أجلس مسيس لوردن ما يدروين بالوردن يايو اسمه خصيان مركا يعني خرج كشركة ده قار هالنقطة وتشدد ويه دوحي الدخل يسوق لي يوحي ما رتخرج بحياة هذا مركا الحسابين يو gaar wuxuu ahaanaya waxa loo yaqaano shirkadda marka xeerkan wuxuu leeyahay economic entity assimilation shirkadda xisaabaadkeeda hale xisaabaadka la diyaarinayo shirkadda kharashaadkeedu wuxuu ku saleeyahay waa shirkadda oo qura yani xisaabaadka shirkadda mooyaane wax kale ma soo saari hadhow marka reportka la diyaarinayo markan inta ka yimaado qodobka inaad aad u fahanteen ma filaya qodobka labaad waxa weeye monetary and assimilation ama until assimilation qodobkan wuxuu tilmaamayaa haddaan idin fasiro wuxuu leeyahay waxa la isticmaalayo tusaale marka shirkad la yahay monetary wala lacagta la isticmaalayo adigu waxa qiimo waxa insurance-ga ee maaragtay halbeega shirkadda wax lagu qiimeeyaa markasto wax la iibsado markasto wax la isdaafinayo waxay wuxuuda ku doonayaan ma lacag ba yani tusaalaan imka inuu lacag noqdo weeyay magaranaysa ayuu soo ka hadlaya magaranaysa laakiin sharxaad haddaan idin fasiro tusaalaan shirkadda wax iibinaysa maxay ku doonaysaa wax alaabta markay bedesho lacagu way badan yihiin ma dollar bay ku doonaysaa currency bay ku doonaysaa ما دولار بيكون دونيسا مساد بيكون دونيسا ما ماركتي ان ما شيء اللي بدلنا يكون دونيسا يعني وحو كل حيرك وانو نقضى مونيتري انت اسمبيشن دولار نو نقضى لعق وين نقضى waxan ay wax ku doonayaan ay doonayaan ujeedada wax u iibinayaan ama insurance-ga halbeega shirkadu waa inuu lacag noqdaa buu leeyahay sidoo kale wuxuu ku leeyahay temporary assimilation waa inuu shirkadu leedahay waqti la sameeyo report سي كوارتنتلي bilaha sanadlaha iyo waxyaabihi lamida anol iyo waxyaabihi marka wuxuu jeedadiisu waxa weeye waa inuu temporary leeyahay baalkan de waqtigiisu kala go'an yahay 3 bilo loo xisaabiyaa meesha oo report loo diyaariyaa dide wixii ba xiriiro weligeed basaas ku noqoto de wax soconaya ma jiraano way isla dumaysaa qodobka ku xidha wuxuu ka hadlayaa cost principle xeerka in badanna waa lagu dhaqmaa cost principle ku muxuu sheegayaa hadaba cost principle ku waxa weeye salahan shay marka soo iibsato aad doonayso inaad si iibiso
value market siin mays qiimaha uu suuqa ka yaale oo saa aad aragtay macquul ka ah siin karto siin mays marka dee xeerarka aad lagu dhaqmayo wax lama siin waxa siinaysa wixii laga soo siiyay aad waxaad faa'iido saaratay salahan imika wax kasto aad soo iibsato marka dee sharciyada caadiga la eegayo maaha waxaan gacan ka laabka sharciyada caadiga marka la eegayo wax kasto aad soo iibsataa wuxuu ku tiirsan yahay invoice oo juwana jira dee ku qoran yahay wixii waxa laga siiyay intuu leeka mitir ahaan lacag ahaan wixii oo magarasa idan hadda waxa saaranaysaana wax aqli gal ay noqonayaan wax la isla xisaabtamay marka invoice la soo saaro marka ujeedadu waxa weeye waxaan markuu value marketkiisa siin mayso markuu wuxuu qiimuhu meesha ka joogayo waxa doonto iska oran mayso laakiin se wixii cost principle siinaysa ayuu xeerkan ku leeyahay kan ku xiga wuxuu leeyahay full disclosure principle oo ah warbixinada dheeraadka marka wax la kala iibsanayo wixii warbixino dheeraada waa in la isa siiyaa tusaale ahaan qof baad wax ka iibsatay shirkad baad ka iibsatay shirkadda hadii la doono 2004 kasoo laguma jiro 2007 waxaad ogtahay oo niyadaada ku haysa oo loo badinayaa oo research lagu sameeyay 2007 productiga shirkaddan ay caanka ku tahay ee la iibiyaa adigu aad iibisaa inuu suuqa ka bixi doono marka 2007 waxa ka dhigan tahay shirkaddan way kacaysaa hadii aan 2007 marka ama 2006 laga sii maaragtay wax la sii bedelin oo productiga laga sii maartay meeshiran si qaadan haddaad inta u sheeg digloos xalee disclosure principle kale sheegaya xeerkaas intaas uu khuseeyayo waa in wixii aad u sii sheegtaa macluumaadkii dheeraadka qofku war xilligaas shirkadu kici karta si qofkii uu maartay uga sii sameesto dhufays xeerka ku xiga waxa loo yaqaanaa going concern principle يعني وأنا ولا دقنتها شركة مركز ريبوت كديارين سو سيدي شركة ويلجيت بتشريس مثلاً شركة دي بعد دي قبل كده بترادو شركة ليت كده أتكلم تو واحد يدونتو بيش الشخص أتكعي سوا أتكلم تمارك ريبوت كي مركز ما أنفعش ريبوت كمركز الديارين وين كونساين كلا قد أغمايو سيدي واحد ويلجيت بتشريس هذا يدونتو هردو هك عذابه لكن مركز ريبوت ديارين سو وين ريبوت نيد وناكسن ديارتيسuna wanaagsan tahay waanad ka hadasha aan iska oran dadana bil ka baad jiri ma yaabal kan bilaa kuma sakan xasan ma shaqaynayso xeerka ku xiga waxa loo yaqaanaa margin principle kan wuxuu leeyahay waa in la isku match gareeyaa expenses ki revenue tusaale ahaan shay marka doonaysa inaad revenue ka dhaliso waxa qasaba inaad expenses geliso marka hore marka expenses geliso revenue kaaga soo baxay waana isku xili noqdaan waana isku transaction ku diiwaan galisa expenses kaasan xiliga bixiyay revenue gaas ayaga soo galay marka faa'iidada intaas ay dheer ama khasaarahaas ku jira waana isku match principle garaysa ka ku soo yaga waxa loo yaqaan revenue recognition principle faa'iidada ama revenue ga waana aqoonsataa sidoo kale labadan qodob dambe iyaguna inventory-ga khuseeyaan oo iyaga marka inventory-ga marka dhiganaysan baad ku dhaxarki doontaan laakiin ashirka intaas aan ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh